الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا ورئيس جارو عملية لنا قدوميها جامعة ألف فرع برع عبد الغني إبراهيم حسن إن قدومي عبد الغني مركورة كسر عبد ما صدقي كوانا دوي إن قدومي واحد بريلو دبالدقية والله فولا ضيري الدفعة دي شنات كبحضة جامعة ألف فرع برع marka ugu horeysa waa sidee dareenkaagu maxay jaamacadda alf farceeda barco ku soo kordhisay gobolka Togdheer iyo guud ahaan Soomaaliland runtii Faisal Saad sheegtay Brito waxa qalin jebinaya dafcadii shanaad ee jaamacadda Alf University farceeda barco ka baxaya ardayda soo runtii ka kooban 350 arday oo ku isugu jiray ilaa 8 kuliyadood dhammaan ardaydaasi waxa uu dhamaaday waxyaabihii looga baahnaa inay qalin jebiyaan marka Brito ay farxadoodii runtii lala qaybsanayaa madax badan oo dawladdu inoo timi runtii aad baan ugu faraxsanahay in ardaydaasi ay maanta qalin jebinayaan sidoo kale waxaan rajeynayaa in ardaydaasi ay wax badan ku soo kordhin karaan gobolka Togdheer iyo guud ahaanba qaranka Soomaaliland marka loo eego jaamacadaha dalkeena ka furan hadiyo goor ardaydu markay dhameystaan waxay ka fakaraan inta waqtigu uu saamixi karaa inay waxbarashadeedii dibadeed sii wadato haddana waxa caqabad ku noqoto sidii ay jaamacadaha la xiriiri lahaayeen marka koowaad Alfa University Burco ma haysaa ardayda ka baxda ee doonayeen inay waxbarashada sii wataan jaamacadda dibadda ay ku sii wataan kuwa si duruuftu u saamixi weyday inay sii wataan maxaa ku gacan qabataan runtii kulay jaamacaddu markasta waxay u taagan tahay in ay horumar sameyso sanad kasta sameysa labadii sano ee u dambeeyay waxaan wadnay barnaamij aan ugu talagalnay in ardayda kuliyadaha ugu sareeya kuliyadaha department kasta inaan u dirno scholarship falilah alxamdu sanadka ma noo dhamaatay ardaydii ugu horeysay oo markaa 7 kuliyad ka koobana sanadka ma dirana ardayda waxaan soo helnay deeqo waxbarasho scholarship waxaan sidoo kale jaamacaduna qayb bay ka bixinaysaa jaamacadda dibadana waan la xirnay markaa iyaguna qayb ahaan bay bixinayaan markaa wadamo badan oo sida ka mid tahay Ethiopia ay ka mid tahay Bangladesh Malaysia ayaan scholarship ka siinana ardaydaas runtii dhiirigelin bay u noqonaysaa in dalkoodii hooyo ay ka baxaan oo dibadda runtii ay wax ku soo bartaan iyagoo markaa helaya macallimiin iyo jaamacadaha dunida qaabka u shaqeeyaan soo arkay iyo macallimiin runtii ajaaniba iyo sidoo kale iyagoo soo qaadanaya tusaale ahaan practical ka duwan practicalka runtii dalka lagu qaato marka waxaan oran karaa ardaydaasi waxay diilo weyn u noqonaysaa jiilka soo kacaya ama cid kastoo runtii jaamacadda Alfa runtii isqoraysa waana barnaamij ay jaamacaddu sanadkan bilowday sanadada soo xigana runtii aan aad u xoojinayno ardaygana waxaan ku dooranay aqoontiisa muddada 3 sano u dhiganayay GPA-giisa ama transcriptkiisa ardayga ugu sareeyay waxaan rajeynayaa runtii inay ardaydu ay aad ugu farxayaan isla markaasna qof waliba dadaal sameynayo oo arday waliba isaranayo adiguna inaad kaalinta koowaad gashaa runtii sanadka soo socda waxa jira markay ardayda Soomaaliland dugsiyada sare dhameystaan duruufo kala duwan bay ku soo dhameystaan waxa jira arday badan oo aan duruuftu marka horeba u saamixin dugsi sare dhameystaan oo ama wasaaraddu ka deyso ama family ka bixiya kale oo si adag oo duruufeed ku soo gaara inay fanfor dhameystaan ardayda sidaas oo kale u soo gudba imtixaankana meel wanaagsan ka gala ee aan awoodi karin inay jaamacad dhigtaan gaar ahaan gobolka Togdheer oo kale maxaad sida gacan uga geysataan Alfa University runtii kulay jaamacadda Alfa markii la aasaasay ujeedada weyn loo aasaasay waxa weeye Burco qaybta Burco in qof waliba uu helo waxbarashada u baahanaa oo asaasi ahayd marka runtii kulay duruufo badan baa iska jiro dhaqaalaha in dalku aad buu dhacay xanuunka COVID-19 baa dunida saameeyay dad badan oo runtii dibadaha lacag looga soo diri jiray way istaageen marka sanad kasta ugu yaraan 70 arday ama ilaa 60 arday baan qaadanayo full scholarship oo deeq waxbarasho bilaash hela ardaydaas oo runtii awoodi waayay in jaamacadda isqoraan marka jaamacaddu waxa leedahay nidaam qofka danyarta inta la soo xaqiijiyo kadib markaan scholarship siina kuwa maanta qalin jebinayna arday badan oo noocaas ku jirta oo muddo 3 sano soo dhiganayeen ku dhameystirtay waxbarashadoodii kadibna waalidiintoodii iyo dadkoodii runtii anfacay oo qaar badan runtii maanta ay kaalmo weyn kaga jiraan dalka guud ahaan oo meelo fara badan boosashada waaweyn ay hayaan qaar cusbitaal ay furteen qaar meelo runtii business ganacsiga ay leeyihiin qaar runtii ay dawladda u shaqeeyaan instituyariyihiin gobolka Togdheer ka yihiin marka runtii waxaan oran karaa jaamacaddu waxay laga maarmaan ka dhigtay in bulshada runtii ay dib wax ugu celiso sidoo kale jaamacaddu waxay ka qayb qaadataa waxyaabaha runtii
bulshada inay dib ugu celiso oo tusaale ahaan waxaan leenahay departmentiga caafimaadka oo kale waxaan u dirnaa fiilal meelaha runtii miyada magaalooyinka gobolka Togdheer hoos taga inagoo halkaa ku fulina adeegyo caafimaad oo ka mid yihiin dawooyinka bilaasha dhakhaatiirtii shaybaarkii marka dad fara badan oo awood u ah inay burca yimaadaan ama ay lacag isku baalaan ay jaamacaddu runtii fudisaa adeegyo caafimaad sidoo kale jaamacaddu waxay ka qayb qaadataa wacyigelinaha hadday noqdaan xanuunada coronavirus ka soo kordhay sidoo kale waxay jaamacaddu tababaro u qabataa laamaha kala duwan ee dowladda tababaradaas runtii loogu dhiso aqoontooda gaagaaban waxaad ka wartaa gudoomiye xiriirna sida u wada shaqeysaan jaamacadda alfa iyo wasaaradda waxbarashada runtii xiriir fiican ba ayaa naga dhexeeya wasaaradda waxbarashada si gaarana weyn waxaan la shaqeynaa guddida runtii tacliinta sare oo ka madaxweynuhu si gaar ah u madax baneeyay marka xiriir fiican baa naga dhexeeya oo runtii iyaga jaamacadda hadday noqoto auditingka in jaamacadda audit gareyn ardayda soo bartay inay eegaan qualitygeeda tayadeeda runtii markaa xiriir fiican oo wada shaqeyna ayaa naga dhexeeya gudoomiye laba munaasabadood baa isku beegan ardaydii jaamacadaha oo qalin jabiyey iyo ardaydii dugsiyada sare oo qalin jabiyey oo iyaguna jaamacadaha u baahan waa maxay kelmadda aad ku sagootiyeyso ardayda Alfa University farceeda burca ka qalin jabiyey bari loo fooladaynayo maxaadse fariin fara ugu baaqaysaa ama aad ugu yeedhaysaa ardayda dugsiyada sare ka baxday ee u baahan waxbarasho jaamacadeed runtii ardayda sanadada dugsiyada sare ka baxay waxaan barnaamij u dirayaa inay runtii ay jaamacadda Alfa ay ka mid noqdaan ay soo qoraan runtii anagoo jaamacadda runtii u hayna waxbarasho runtii tayo leh laabab casri ah macallimiin runtii aqoontooda aad u sareyso oo master ilaa PhD ah iyo runtii maamul hufan oo runtii ku soo dhaweynaya oo qofkii la eegayo baahiyaadkiisii ama si dhow loola shaqeynayo toddobaadna waxaan u dirayaa ardayda sanadkan jaamacadda ka qalin jabinay jaamacadda Alfa in qof waliba aqoontiisii runtii uu sii wado oo ilaa heer master uu gaarsiiyo waayo waxbarashadu ma dhamaato qofkii runtii qofna aanu isooran markaad qalin jabiso shaqo hel ama dee guurso laakiin aqoontii runtii uu sii kordhiyo marka qof walba waxaan ugu baaqayaa in waxbarashada masterta ay sii bilaabaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa qof walba meeshii uu ka heli karo insha Allah dad waxaan leeyahay hambalayo ugu dambeyn jaamacadda Alfa University halkee bay higsanaysaa jaamacadda Alfa runtii waxaan higsanaynaa inay noqono runtii jaamacadaha ugu horeeya bariga Afrika ama geeska Afrika ba markaan eegno iyadoo jaamacaddu sida dareemaysaba sanadihii u dambeeyay soo saaraysa number aad u fara badan tiro fara badan isla markaana tayadoodii iyo aqoontoodii leh waxaan ku rajaynaynaa inaan buuxin doono dhammaan shuruudaha caalamiga international standardka ee jaamacadda laga rabo runtii wax badan oo buuxinay wax fara badan runtii way noo hadhayin aad iyo aad baad baadsantahay gudoomiye Cabdiqani Ibrahim Xasan gudoomiyaha jaamacadda Alfa University farceeda Burco oo aan wareysi gaar ah kula yeelanay xarunta jaamacadda Alfa ee Burco aad iyo aad gudoomiye mahadsantahay